weeye anaga horta awalan qofka muslimka dhiigiisa wuxuu naga joogaa meel aad iyo aad u weyn marnana xarag shabaab mujaahidiin ma kuma degdegayso mana ku xadgudbayso qof muslima dhiigeed biidni illahi tabaaraka wa tacaala ahdaafteedana ka mid maaha bal waxay jecel yihiin waxa weeye in gaal uu fakado intii muslim uu dhiman lahaa halaaga jamaaci ah wixii ka dhacay hotel dayax oo dadka muslimiinta oo masaakiinta oo jidadka iska maray kuwa deganaayba lagu baabashay oo lagu laayay waxa soo kale wixii ka dhacay dayax wixii oo ka dhacay liido anigu waa ku jira liido anigu joogay anigu ku culamaha meel gooni ku shireenay wixii ka dhacay liido wixii ka dhacay hotel saxafi wixii ka dhacay maartay hotel shaamu ka dhacay wixii ka dhacay beledweyne wixii meel kastoo Soomaaliya kamid dadka wixii ka dhacay maartay ardadii masaakiinta ee Turkiga loo qaadayay waxbarashada ubadka Soomaaliyeed ee maartay heedo soo koreysay harkay saama ka dhacay ee dagaalada dhamaan madaafiicda meel xalay qaday loo baxshay oo inda laanta dadka la iska gamayo ama suuqada lagu gamayo ama dadka la isku qarxinayo qofka isqarxinayo diinta shaqo kuma leh dadka muslimiinta oo haligana waa loo haystaa kii soo abaabulane waa malcuun asigana sidaas waaye waxaanu leenahay waxaad wadiina diinta nagala dooda noo imaada shaashadaha imaada ma banaana marka hoteelada iyo iskuulaadka iyo suuqyada iyo waxyaabaha adduunyada ka dhacay Soomaaliya hadda la soo raruhayo oo muuqdaan ee dadka si caam ah la iskaga leenayo ma ahan fikrad diiniya ma ahan fikrad diin ku dhisan taas waxa waaye hadmu diin bismi diini ruux muslim in la dilo hadii la dilo kidib hadana la yiraahdo maartay ilaah noo gargaaranay hada waa diin la'aan wal ciyaadu billah waa wax la maaragtay muruga leh waa wax aayatiin xun maalin walba cunug maskiina iyo hooyo maskiina iyo askari maskiina iyo xamaali dekada shaqo ka soo doontay ayaa ku qurbaxay qaraxi maanta meesha ka dhacay masiibadaana ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaa in ummadda Soomaaliyeed ka dulqaado ayaduna calooshooda isu furto inaan maalin walba ku baroorno meydka caruuraha Soomaaliyeed oo aan qaan gaarin iyo kuwa qaan gaaraba waa aayatiin xumo waa dhibaato waa rafaad sidaa darteed ummadda Soomaaliyeed inay isu gurmato oo ay ka tabaabashaysato waxyaalahan oo kale waxaan ma aha wax aan garan karno meesha ay ka socoto waa wax masiibo ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa masiibada inuu naga dulqaado ummadda Soomaaliyeed shacabka oo masaakiinta ah ay ragaan meesha ku xasuuqeen in cunug 2 jir ah iyo cunug 4 jir ah iyo cunug 10 jir ah iyo hooyo cunugeeda gacanta ka haysata la dilo ee la yiraahdo diin baan wadnaa taas Soomaaliya hadda inay ka baraarug baxdo ay ka tagtayaan aaminsanahay maanta aysan ahayn wax hadda justification iyo laga dhigan kara aysan ahayn shacabka meesha lagu xasuuqay meeshan masiibo weyn ayaa ka dhacday waxa la laayay waa shacab suuqa dhexbartamihiisa ayaa gaariga la dhigay dhaawac aad u yara dhimashada aad u badan aniga kama fogeyn wax yar halkaas aan joogay markuu qarax dhacayay sida la sheegay gaari hoomiyo laga soo buuxiyay qarax ayuu ahaa suuqa dhexbartamihiisa ayaa la dhigay waxa loogu talagalay waa shacab ma ciidan lagu laayay ama meel ay ciidamada degan yihiin waxa loogu talagalay shacabka magaalada Muqdisho in lagu xasuuqo waana ku faanaya nimankii nabadiidka inay dhahan dadaan laynay ama ciidan aan laynay goobta ay ka dhacayna waa ka soo horjeedka dekada Muqdisho waa meeshii geedihii waaweynaa ee dekada horteeda ahaa ee la fadhiisan jiray ee shacabka dekada ka shaqeeya iyo xamaalatada iyo hooyooyinku shaha ku iibi jireen waaye marka waa shacab lays hadafka cadawgu intaas buu ahaa inay ummadda laayaan masaakiinta laayaan oo dadka xamaalatada dilaan ayuu ahaa xilligii dekada loo shaqo tagayay bay ahayd aad baan uga xunnahay intii dhimatada u naxariisto fasaan dhihiisay had oo aan u jeedno oo ninkan u jeedaan waa 4 3 oo baawarka baraanka soo dhignay iyo meedkaas xagga yaallo gabar iyo hooyadeeda oo meesha ka dhimatay lix baa ka badiyna dii markii si loo fiiriyo lix baa ka badiyna laakiin hadda inta aniga xaqiiqo aan aragnay ku aragnay taas biyaan waxaan isleenahay dhammaan anaga hadaan cumar Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa cid kasta ee dadka caadiystay inay dadka laayaan dadka dhacaan dadka gaalaysiiyaan haddana diin way dhahayaan laysu calaa shay min diin